cabdiraxiim aadan cabdi oo ah arday ka dhameynaya jaamacadda Indian Ocean ee magaalada Muqdisho digriga koobaad ee jaamacadda ama qaadanaya shahaadada bachelorka ayaa daraasad kaga sameeyay buuggiisa qalin jebinta isticmaalka daawooyinka dabiiciga ah iyo tan dhirta laga sameeyo waxaana uu ku soo bandhigay ardayda iyo maamulka jaamacadda hortooda buuggiisan waxyaabaha kala duwan ee kaga hadlay iyo qodobada uu qaatay jabtariska loo qeybiyo buugga waxaan maanta halkan ku soo bandhigayaa daraasad aan ku soo sameeyay ama cilmi baaris aan ku soo sameeyay isticmaalka daawooyinka ee magaalada Muqdisho iyadoo lagu bedelanayo booska daawooyinkii kale the use of herbals as alternative medicine in Muqdisho haddana hore u sii galo jabtarkeeda dawo dhaqameedku waa qayb ka mid ah dhaqamada ummadda dunida ku dhaqan waxaana la adeegsan jiray kumanaan sano ka hor hay'adda caafimaadka u xilsaaran qaramada midoobay marka magaceeda la soo gaabiyo WHO waxay aqoonsatay muhiimadda ay leedahay dawo dhaqameedka ardaydii iyo mas'uuliyiintii jaamacadda Indian Ocean oo goobjoog ka ahayd madasha cabdiraxiim aadan cabdi uu ku soo bandhigay daraasadii uu ka sameeyay isticmaalka daawooyinka dabiiciga ayaa su'aalo kala duwan goobta ku weydiiyay isagoo uga jawaabay si saraaxad leh Professor Cabdiqaadir Maxamuud Cutish oo kamid ah maamulka sare ee jaamacadda Indian Ocean ayaa isna ka hadlay goobta isagoo xusay in dadka Soomaaliyeed loo baahan yahay xilligan inay ku baraarugaan isticmaalka daawooyinka dabiiciga kuwaas oo dhibaato gaarsiinaynin dadka 1994 waxaa lagu sameeyay meeshan bandhig daawo dhaqameedka jaamacadda codsatay dadkaas in daawadaas ay u dhoweeyaan daawada casriga ah maanta jirta sidaa darteed waxay meesha kusoo bandhigeen kiniini sharoobo bamaato kulli wuxuu in dhiig la qaado inta qof daawo la siin Mandeeq Maxamed Axmed telefishinka Home Cable magaalada Muqdisho